وقيبتي لبعض فضيحتي لما قعبحتي بنما بيبرس wargeyska xogtani faafiyay waxa uu si qoto dheer uga hadlay inay jiraan shirkado sita magacyo kala duwan kuwaas oo ku magacaabaan shirkado ganacsi bangiyo shirkado xagga la talinta sharciga iyo sharciga maamulaha hantiyaha gaarka loo leeyahay kuwaas oo dhammaantood ay si qarsoodi ah shuraka ugu yihiin qaar ka mid ah madaxda dawladaha kala duwan ee caalamka qaar ka mid ah maalqabeennada ugu hantida badan iyo kuwa ugu caansan iyo siyaasiyiin sidoo kale waxaa iyana qayb ka ah fadeexadani madaxda ururka kubadda cagta adduunka ee FIFA qaar ka mid ah kuwa daroogooyinka tahriibiya jilayaal caalami ah iyo qaar ka mid ah ciyaaryahanada dunida ugu caansan kuwaas oo la xaqiijiyay inay si qarsoodi ah isugu gudbin jireen malaayiin iyo balaayiin dollar oo aanu habadeegsigoodu daahir ahayn haddaba waxaa dhacday tan iyo markii ay bartamihii bishii abriil ee sanadkii 2015 ay soo shaacbixeen umuurahan uu warku gaadho bulshooyinka ku dhaqan daafaha caalamka kuwaasoo siyaabo kala duwan u macneeyey arrinkani fajacaya ama kaaga ku noqday madaxda ay fadeexadani albaabada guryahooda garaacday ee ay kaga saliilisay ay ka mid yihiin madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ra'iisul wasaaraha dalka Iceland nin ay xidid dhow yihiin dalka hogaamiyaha dalka Shiinaha boqor Salmaanka Sacuudiga iyo aktarada caan baxday ee lagu magacaabo Aishwarya Rai una dhalatay dalka Hindiya iyo jilaaga caan baxay ee Jackie Chan shakhsiyaadka noocaas oo ka mid ah dadka adduunka ugu awoodda badan waxay ku mideysnaayeen xatooyo iyo la baxsi cashuur oo ku waajibi lahaa hantiyahooda iyo ganacsiyadooda gaarka ah kuwaasi oo dhammaantood si qarsoodi ah ugu dhexeeyay ganacsiga hoose oo ka daboolna indhaha caalamka sidoo kale waxay isku ogaayeen inay hantiyahooda ku qarsadaan meel ka baxsan heebaha caalamiga ah gaar ahaan waddanka Panama oo arkayeen inay tahay meel aanay si fudud uga warheli karin warbaahinta caalamiga ah waxaanay gabood ka dhigteen inay samaystaan shirkadani maqaarsaarka ah ee lagu magacaabo Mossack Fonseca iyo sharaa'ic kale oo ka farcama kuwaasi oo ay dhammaantoodba kala duwan yihiin waxay ku magacaaban yihiin iyo waxay qabtaan si kastaba ha ahaatee kooxdani wariyaasha ah ee arrintani ku khashifay waxa ay kaloo sheegeen in howlgallada ganacsi ee noocan ah ee qarsoodiga ah ay ku magacaaban yihiin dad magacuyaal ah oo aan ahayn kuwa sida dhabta ah u leh hantiyahaasi iyadoo madaxda hantidan lehna mid waliba uu si daba ka dhiiba ugu qoray qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa iyo kuwa ay qaraabo dhow yihiin shakhsiyaadka noocaas ah ee ku magacaaban hantiyahaasina waa kuwa iyagu laftooda is yaqaana isla markaana ku xidhan qaar ka mid ah kooxaha khatarta ah ee maafiyada iyo kuwa daroogada ka ganacsada ee dunida caadiga ka qoran dambiilayaasha cadeymaha la helay ee muujinaya in xogtani tahay mid dhab ah ayaa ay wargeyskan iyo kooxdan wariyaasha ay ku sheegeen inay hayaan cadeymihii iyo qoraalladii saxiixinaa ee muujinayay dhacdooyinka falxisaabeed ee ay isweydaarsan jireen shakhsiyaadka noocaas ee ku buhoobay inay la baxsadaan cashuuraha ku waajibi lahaa ganacsigooda khubarada ku xeel dheer arrimaha dabagalka musuqa xatooyada iyo wax istambarintuna waxay sheegayaan inaanay hawshu sidani ku dhammaan iyo ay weli jiraan xogo kale oo ka sii xasaasiyan kuwan la fashiliyey kuwaasi oo iyana cibaarooyinka iyo cajabtoodaba leh isla markaana loo baahan yahay la ogaado iyadoo su'aalaha shakiga dhaliyay ee ugu horreyso maxaa sababay in shakhsiyaadka u dhashay dalka Mareykanka ee warbixinta lagu sheegay ay noqdaan kuwa ugu tirada yar ee lagu xusay inay ku lug leeyihiin fadeexadan la magac baxday Panama Papers kuwaasi oo si gaar ah kooxda wariyaasha ay u sheegeen inay iyagu leeyihiin duni gaar ah oo labaad oo ay wax ku qarsadaan kuwaasi oo la sheegay inay wax ku qarsadaan bangiyo iyo sharaa'ic iyaguna si xatooyo ah wax loogu qarsado oo ku yaal jasiiradaha loo yaqaano Paradise Islands ama jasiiradaha Jannooyinka ee ku yaal dhulbadeedka loo yaqaano Caribbean su'aalaha kale ee la isweydiinaya arrintan ayaa ay ka mid yihiin ma laga yaabaa in sirahan la fashiliyay ay keenaan oo ay sababaan cadaawad siyaasadeed oo ka gudubta shakhsiyaaduna gudubta dalal maxayse ku dambeyn doonaan shirkadaha markii hore loo haystay sharaa'ic caadiya balse la ogaaday inay yihiin dhuumaha waaweyn ee ay maraan faa'iidooyinka maaliyadeed ee balaayiinta dollara ee ku qotoma laaluushka iyo xatooyada hoose ee lagu talax tegey fadeexadan in la magac baxday Panama Papers waxay kaloo sababtay kacdoono shacab oo ka dhashay tan iyo markii daaha laga rogay fadeexadan taasoo kaliftay inay qaar ka mid ah madaxda dalalka caalamka ay guryahooda soo galaan dadkii ka dhashay mudaharaadadii ay sameeyeen shacabkooda kuwaasi oo su'aalo adag ka weydiinayay madaxdooda ku lug lahaanshaha arrintan la fashiliyay gabagabadii waxaa iska cad in shirkadda Mossack Fonseca iyo macaamiisheeda lagu qiyaasay 300,000 ee qof oo dadkii ku shaqaysanayay ay jireen waxay qeerinayeen oo aanay doonayn inay dunida kale ogaato waana tashakiga abuuraysa ee gogosha u sii xaaraysa inaan halkaa lagaga hadhin iyadoo ay weli saxafiyiinta hawshan fashiliyay kuwa kale ee ku baraarugay fashilka fadeexadan ay ku hawlan yihiin u sii dhugma yeelashada arrintani arrinkuna weli waa korka xaadis daawadayaal
daawadayaal waa inoo qaybta saddexaad waynu ku eegi doono haddii Rabbi idmo shakhsiyaadka la maxkamadeeyay ee fadeexadan Panama Papers galaafatay iyo madaxda xiriirkoodii ku waayay iyo kuwa la leelijinayo ee farta dhuunta ku haya